waxaan leenahay shaqaaluhu waa kuwa shiila maskaxda kala shuba ee ka soo shaandheeya xigmadda waa idin hambaleynayaa kulligiin waa maalintii marqumaalka waa maalintii xalaal quutayaasha waa maalintii xoogsatada adduunka waa maalintii kuwa dhididkooda ku nool waa maalintii kala duwaysay kuwa shaqeeya iyo kuwa shaxaatan waa maalintii shaqaalaha adduunka gaar ahaan shaqaalaha ummadda Soomaaliyeed waxaan aad ugu faraxsanahay inay jirtay waqti dalkani uu ahaa dal weyn marka laga fiiriyo shaqaalaha u shaqeeya waxaan aaminsanahay taariikhdaasi inay naga caawin doonto taariikhda cusub oo aan sameynayno haddii Ilaahay yiraahdo waagaa marka waxaa jiray shaqaalahaasi maanay ahayn shaqaalo qabiil ku dhisan maanay ahayn shaqaalo dalkooda hagrada maanay ahayn shaqaalo dan gaar ah leh waxay ahaayeen shaqaalo dalkooda iyo dadkooda iyo dawladooda daacad ah waxaan halkan maanta ka maqlaayay iftiin la mid ah kii isaga ahaa oo tusaale u ah inay dawladnimadeena soo laabato waaga isaga ah waxaa jiray in shaqaaluhu ay shaqada u sinaayeen la midayn jiray aqoonta iyo shaqada waxaan rajaynaynaa marka dib u habeynta laga wado wasaaradda wasiirku sheegay inay naga caawin doonto haddii Ilaahay yiraahdo in mar dhow sanadkani markuu dhamaado aan soo gaari doono in wasiir damba aanu qof qori doonin ra'iisul wasaare aanu qof qori doonin madaxweyne aanu qof qori doonin shaqo walba ay noqon doonto marka ay wasaaraddu soo dhamayso baarlamaanku ay shuruucda soo dhamaystiraan la dhamaystiro howlaha guddiga laga rabo waxaad bilaaban doona dhaqan cusub oo kamid ah la dagaalanka ama isla xisaabtanka oo macnaheedu waxay tahay shaqo walba oo dawladda ka soo baxda ama ahaato xafiiska madaxweynaha ama ha ahaato tiyaatarka in suuqa la soo dhigi doono lana siin doono qofka ugu mudan haddii Ilaahay yiraahdo waxaa laga yaabaa inay caqabada la kulanto waayo qolooyinkii rabay weligood iyagu inay cid qoraan waxay ku noqonaysaa dhib laakiin waxaan idin sheegayaa in dib u habeynta dalka lagu wado lagu sii wadi doono inta qof walba Soomaaliyeed uu dareemayo in dalka la wada leeyahay dawladda sideedaba waxay leedahay saddex xoog mid waa ciidankeeda midna waa shaqaalaheeda midna waa shacabkeeda shaqaaluhu marka waa laf dhabarta intaba sababtoo ah iyaga la rabaa inay isku xiraan dawladda iyo shacabka iyaga la rabaa inay ciidanka gacan siiyaan iyaga ah safiiradii dawladda maadaama kumanaan qof ay u shaqeyso dawladda aan adigu faraxsanahay halkan in laga qiray in cid walba ay hesho xuquuqdeeda waxaan rajaynayaa nidaamkii aan ku ballaynay 2 sano ka hor oo ahaa in qof walba oo dawladda u shaqeeyo uu xuquuqdiisa helo qof walba oo xuquuqdiisa helana uu noqdo qof dawladda u shaqeeyo marka waa idin hambaleynayaa waxaan rajaynayaa in la jibaari doono shaqada waxaan u hambaleynayaa dhammaan shaqaalaha rayidka meel walba ay dalka ka joogaan waxaan u hambaleynayaa ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan oo difaac ku jira gaar ahaan kuwii saakay xoogga ku muqaymiyay argagixisada ee la wareegay bariga
waxaan u hambaleynayaa ciidamada booliska Soomaaliyeed ee ka shaqeeya amniga magaalada Muqdisho. waxaan u hambaleynayaa shaqaalaha iyo wasiirada Soomaaliyeed ee jooga magaalada Addis Ababa ee kula jira wada hadalka bangiga adduunka iyo hay'adda lacagta adduunka si ay u soo dhameystiraan qandaraaskii ugu dambeeyay oo aan la gelaynay hay'adda lacagta adduunka kadib inta aan la bilaabin tallaabadii ugu horeysay ee deyn cafiska oo aad hadda u soo dhawaatay. waxaan u hambaleynayaa shaqaalaha kulligood ka shaqeeya isxilqaan ee mar dhow soo afjari doona safkii ugu horeeyay dhismaha tiyaatarka, maktabadda, madxafka iyo taalooyinka. waxaan idin leeyahay idinkana hambaliyo. waxaan u hambaleynayaa qof walbo shaqaale ah oo qayb ka ah dib u dhiska dalka. maadaama marka halkan aan maanta isugu nimid, waxaan rabaa inaan laba eray ka iraahdo xaggeen joognaa. 2 sano ka hor wuxuu ahaa walwalkiinu qof waliba mushaarkiisa ma qaadan doona. maanta halkan waxaad ka caddayseen laga soo bilaabo Janaayo 2017 ilaa bishii hadda dhamaatay oo maanta bishu ay kow tahay in dhamaadka bisha cid waliba mushaarkeeda uu qaatay oo shaqaale. maadaama aan ka gudubnay safka isaga ah, marka muhiimaddu maxay tahay marka inaan sameeyno? waayo shaqadeennu ma aha in mushaar la bixiyo. shaqadeennu waa dalka in dib loo dhiso. waa in dhaqaalaha dalka dib u habeyn lagu sameeyaa, dalka deynta laga cafiyaa, musuqmaasuqa lala dagaalamaa, 100,000 kun oo shaqo la abuuraa. waa in ganacsatada Soomaaliyeed gacan la siiyaa si ay u helaan fursado ay dhaqaalahooda ku kobciyaan. waa in ciidamada dib u habeyn lagu sameeyaa oo la tiriyaa, la tayeeyaa, la toosiyaa qof walba